gudoomiyaha urur siyaasadeedka diiwaangelinta taageerayaasha urur siyaasadeedka ogaal oo ilaa shalayta la diiwaangeliyay kubanaan ka mid ah taageerayaasha urur siyaasadeedka ogaal markii soo gaadhay xafiisyada kala duwan urur siyaasadeedka ogaal oo ku leeyahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxaa ku soo dhaweeyay kubanaan ka mid ah taageerayaasha urur siyaasadeedka ogaal gudoomiye Rooda Cabdi Muuse ayaa soo boqotay xafiisyada kala duwan urur siyaasadeedka ogaal waxaana uga mahad celisay dhammaanba taageerayaasha urur siyaasadeedka ogaal taageerada mugdiga iyo miisaan kale ay u hayaan ee ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Rooda Cabdi Muuse sidoo kalena waxaa ku soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer odayaasha dhalinyarada waayeelka waxgaradka beesha walbari ugana mahadnaqay safarka ay ku timi Rooda Cabdi Muuse magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaanay u ballan qaadeen waxaanu soo dhaweynaynaa gobolka Togdheer xafiiska ay ka furtay Rooda Cabdi Muuse oo urur siyaasadeedka ogaal xafiiskii guud ee ay ka furtay haddii aanu nahay beelweyn taawalbari waxaanu u soo dhaweynaynaa si mug iyo miisaan leh ayaanu u soo dhaweynaynaa ururka ogaal gudoomiye Rooda Cabdi Muuse ku soo dhawow Rooda gobolkaagii bulshadaadii si mug iyo miisaan bel haddaan nahay odayaasha gobolka Togdheer haddii aanu nahay beeshana walbari waxaanu ku soo dhaweynaynaa si mug iyo miisaan bel gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa Rooday halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa ururka ogaal Rooda Cabdi Muuse gudoomiyaha ka tahay waxaanu leenahay gobolka Togdheer ku soo dhawow aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa insha Allah taala guul waanu ku rajaynaynaa waana ururka ugu taageerada badan leh gobolkan Togdheer intaanu arkaynay siyaasadeedka ogaal anagoo ah beelweynta awal bari waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolada bariga waxaan u rajaynaynaa guul waxaanaanu kugu taageeraynaa Roogay inaad soo baxdo oo urur u gudubto oo xusbi u gudubto waliba insha Allah bismillaahi kariim Rooda Cabdi Muuse waan soo dhaweynaynaa iyo ururkeeda ka mid baanu nahay waxaan u muujinaynaa taageerada ururka ogaal weynina Rooda Cabdi Muuse ururka ogaal baan ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u taageersanahay xusbiga waan soo dhaweynaa dal nahay gobolka Togdheer waxgaradka waayeelka daan nahay odayaasha duqeyda hadaan nahay gobol awal bari waxaan u soo dhaweynaynaa si farxad laan ku soo dhaweynaynaa waxaan la soo dhawo Rooday waa gobolkaagii aad iyo aad insha Allah waad soo bixi doontaa waxaan ku soo dhaweynayaa Rooda Cabdi Muuse ururka ogaal ee gobolka Togdheer haddaan nahay dhalinyarada awal bari si miisaan leh oo milga leh ayaan u soo dhaweynaa cudud iyo miisaanba waxaan ku soo dhaweynayaa Rooda Cabdi Muuse ururka ay wado Togdheer xafiiska ka furtay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaan jecelahay halkan guud ahaan uga mahad celiyo odayaasha gobolka Togdheer si hore degdeg ah ku soo galnay safarkaygu wuxuu ahaa hubin sida diiwaangelintu uga socoto gobolada dalka sida xeerka ururadu dhigayo waa xilligan waqti xaadirkan inay 6 gobolba diiwaangelintii 1000 qof ee guddiga diiwaangelintu naga rabtay registration koodii laga bilaabo gobolada kuna soo dhameystirmaan arintaydu kormeer bay hayd odayaashana waan uga mahad celinayaa insha Allah waxaan rajaynayaa Togdheer gobolkan ugu codka badanahay inuu noqdo arin labaad baan doonayaa halka fariin ka diro fariinta labaad aan dirayaa waxay tahay hadii taageerayaasha qaar lala ambaday taageerayaasha ururada iyo kuwa urur siyaasadeedka ogaalba waxaan doonayaa inaan arin yar oo kooban u iftiimiyo shalay golaha baarlamaanka wixii ka dhacay waxay hay sharci darro la tahriibinayo waan ka xumahay balse waxaan doonayaa inaan u diro shacbiga reer Soomaaliland arin xaqiiqa oo ah 13 November qof kasta uu og yahay inaanay doorashada madaxweynuhu ku dhici karin qof kasta oo reer Soomaaliland uu og yahay 13 November inaanay doorashada madaxtooyadu qabsoomi karin oo hal bil laga gaari karin arinta darteed ama technicality hal la qaato ama kordhin guurtooda bixisay ha qaadata madaxweynuhu si sharci ayuu guuri karaa laakiin asxaabta qaranku lama daba guuri karto 6 bilood oo technical hadii ay guddiga diiwaangelintu bixiyaan December ninka liisanku ka dhacayo 6 bilood ee madaxweynuhu guura lama guuri karo xataa tartanka madaxweynenimada ayay ururadu galayaan si sharci bay ku soconayaan arintaasina sharci darro ahayd gudoomiye Rooda Cabdi Muuse ayaa markay soo gaadhay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa ku soo dhaweeyay kumanaan ka mid ah taageerayaasha urur siyaasadeedka ogaal waxaanay ku soo wareejiyeen istariidada kala duwan ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waa Siciid Cali Cismaan Xaalays telefishinka caalamiga Gobolnimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer